الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ما تبلو حين دوننا ريدا إن يجنا يقاببك مركا لدونا يو إن لصوص على ريدا ويد كده أما ميزان حوله مكل دونا العبرة واللي بقى أرجع وحويان صار الله عبرة مكان تاني كده مثال ريبات قارتان ريدا بالوحي إنه يجينا ميزان كده أنتوا يهي وقدرتان وريب بلدية أما ريا مجالات كم ده وأعظم أحسن أو بلارن marka bal waxaynu eegaynaa miisaankeeda inaynu soo saarno ridan iyo qaabka miisaankeeda loo cabiro dhamaantiin soo dhawaada akhyaarta wadana ka daawanaysan markaynu eegayno ridan miisaankeeda qaabka loo cabiro marka koobaad waxaynu ka cabiraynaa hirtigate waxa weeyaan intaas ayaa la cabirayaa wadnuhu ku jiro oo xagga dusha laga cabirayo hirtigatekeeda aynu cabiraynaa hirtigatekeeda aynu cabirno waad aragtaan hirtigatekeeda qaabka aynu cabiraynaa hirtigeed كده qaab qaas aynu cabirnaa hirtigeed كده iminka xagaas waxay noqotay ridani 230 bay noqotay wada artaan 230 ayay noqotay hirtigeedkeedu wuxuu noqday 230 buu noqday 230 hirtigeedka markaynu cabirnay inaynu cabirno dhinaca kale lengthkeeda rida inaan cabirnayno eegina iyadana qaabka aynu cabirnay iyadana waa qaabkan waxaan ka bilaabaynaa halkaas aynu ka bilaabaynaa point of shoulder halkaas laftaas baan ka bilaabaynaa garabkaas uu ku dhamaado oo point of shoulder markaynu lafta ka bilowno point of shoulder waxaynu ku joojinaynaa laftaas dabada ee leeyahay pinbone waad aragtaan laftaa dambada ee misigta ee yar soo taagan ayaad ku joojinaysaa waad aragtaan intaas waxay noqotay iyaduna okay aan aad u cabiro intaas waad aragtaan ridaas iminka halkaas aynu ka cabirnay marka hore hirtigeedka aynu cabirnay hirtigeedka markaan ka nimi waxaan cabirnay lengthka laftaas iyo laftaa ugu dambeysay pinpoint ayaa xooyay intaas la isku qabanaya intaas la isku hayaa imka intaas miisaanka wuxuu noqday cabirku wuxuu noqday isaguna 720 inch 720 inch qaacidada oo la laba jibaari 230 lagu dhuftay 230 oo lagu dhuftay lengthkii oo ahaa 720 lagu dhuftay 720 qaabkaas waa qaabka loo measure gareeyo riyaha oo la cabiro in qaabka rida dhiiga loo qaado rida marka dhiiga laga qaadayo waxaan eegaynaa marka riyaha ama xoolaha dhiiga laga qaadayo xageeba dhiiga laga qaado inta badan ugu fiican ee markiiba la heli karo laga qaadi karo rida dhiiga waxaan qaadnaa jugular fiinka oo xiidka halka mara ee dhiiga qaada ayuu ka qaadayna xiidka wax la dhahaa aynu ka qaadayno waa jugular fiin waa fiin iyo artery ka duwan yihiin marka waa fiin isagu xiidkaas ayaynu dhiiga ka qaadaynaa bal marka qaabka looga qaadayo ayaynu eegaynaa oo wax weeyaan markaas inta badan waa inuu marka aad neefka dhiiga ka qaado qofku qabta qaabkaas wax weeyaan wada aragtaan ridi waatan dhiiga in doonaa inaan ka qaadno shilishkii marka hore aad sabta qabto qaadanaysaa maraysa meesha waad kilin garaysaa markaad meesha kilin garayso bisinkaad u qabanaysaa shilishkaaga la soo baxaysaa shilishkaaga markaad soo baxdid yar baad saaraysaa ridan imka waa dhooseyla ama waa rabayada marka wax weeyaan halkaas ku adkaanaysaa gacanta halka markaad gacanta ku adkayso waxaad arkaysaa xiidkii oo istaagay baad arkaysaa xiidkii oo istaagay baad arkaysaa xiidkii oo istaagay kaas aad arkaysaa katrida uga qaadaysa dhiiga waa qaabkaas yar oo baan ku fudud ayaa rida dhiiga looga qaadaya qaabkaas looga qaadaya ridan dhiiga ay ka qaadnay dhiigan way soo baarayna markaan soo baarnay insha Allah resultiga way helisaan qaabkaas rida dhiiga looga qaadaya wakaas intaas inuu ku filan baan u maleynaya way ka qaadnay rida qaabka rida looga qaadaya waa qaabka marka hore saasoo qabanaysa marka saa qabato ama suulkaaga ayaad barashar halkaas ka qabanaysa marka ka qabato waxaad arkaysaa xididkii laftigiisii oo baxay oo istaagay waxaad arkaysaa isagoo soo baxaya marka saa barashar ugu qabato waxa weyn dadka wata marka laga qaaday dhiiga gacanta laga xidho markaas iyadana halkaas barashar laga cadaadinaya yar baad dadka dhiiga looga qaadaya kaas wax weeyaan dhiigeedu sida ka qaadnay iyo qaabka looga qaado dhammaan waan salaameynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan ku soo dhawaada channelkan Somali YouTube